markiiba waxa igu soo bilowday amar la leeyahay xamar soo gal wadatashi baa lagugu yeeraya oo macallin siyaad barooda caddi ka hadlay oo inqilaab baa fashalay leh oo ragga farta lagu fiiqaya raggii dhalinyaradaha saaxiibada ay yihiin oo cirshi adigana laga yaabaa leynka ku soo galo waxaa la fahmay leynka inaan ku jiro xukuutaan wataa oo military ah oo tirahanay misaa markaa ya tirahanay 10,000 way kowge ciidamadii gobolada dhexe waa hiiraan galgaduud mudug oo markaa isku mudug ah waa la soo dhaqaajinayay waxay iyana inay balcad ka soo galaan adna aan ka galo afgooye inta baydhabo sii marayo oo qabta saraakiisha halkaas inqilaabka diidan inaan laayo kuma talagelin laakiin waan qaban la xeri lahaa markaan labada dhinac ka soo galno annaga ka awood badnay idan weliba wuxuu watay ciidan xooga hubka la soo xooga buu watay laakiin taasi ma dhacayso waan tiri odagu ambada yurad buu ku baxsanaya ambada waa qabanayna laakiin in dad laayo kuma aan talagelin annaga iyagii liikays baa baxay 9kii ebre oo 3 xasha dhiman tahay oo annagu aan diyaar garow ku jiro bay inqilaabkii isku dayeen waxa isirayaan laydin kala hormarine inqilaabkii isku daya day ku guulaystaan qaar haddii kale dee waa wax ku dhici jiray waxay ku galeen inqilaabka waxa weeye waa liikays kaas baxay ay ogaadeen in laga war helay laga warsho ay wataan haa markay isku dayeen habeenkii baanu maba islaamin taasi qaban karaan dhul badan bay qabsadeen saraakiil badan oo taliyayaalaha iyadoo aatan inqilaab ka soo horjeeday waa qabteen cali samantar wuu ka baxsaday gurgiisii weerarana waxay damceen inay qabtaan wuu ka baxsaday hadda rug buu ku cararay deeta markii dambe maalintii dambaa lagu biyo keenay ilaa laga xoog qoran laga badan laga hub badan laga ciidan badan iyo umeehaysane horta saasuu ku fashalay inqilaabkii markuu fashalana magogay anigu iyo ilaah bay iga tahay in la bilaabay goor baad ka war heshay lagee jooga magaalada luuq la yidhahdaan joogayo gala ku taal laakiin difaacii waa furuntada hore waa doolow iyo buulaha markaan maqlay inqilaaboo fashalay waxa uu iigu horreysay waxa weeye maxamed siyaad barro idaacadda ka hadlayo inqilaab baa la isku dayay inqilaabka waa fashalinay waa kaa tuul bay ahaayeen magaysi leh